maxamedow xiriiro kala duwan oo saakaan la sameeyey magaalada jigjiga xaaladdu way degan tahay aad ay uga duwan tahay sidii shalay ay ahayd magaalada saaka waxaa lagu arkayay booliska rabshadaha ka hortaga oo Soomaali u badan oo watay burar waxaa kaloo ugu jiray koofiyadaha qafilan madaxa iyo caagaga ay gashtaan lugaha si ay uga hortagaan wixii rabshadaha ama dhagax tuura ama dhibaataha ay yimaada ilaa 10 qiyaas ay u socdeen wadooyinka magaalada dhex marayeen iyaga dadkana waa ay dhex socdeen waxa kale oo iyana la soo sheegay dhinaca Baabili oo ah deegaanka ka tirsan dhinaca ismaamulka Oromiya iska hor imaad sidii kii jigjiga shalay ka dhacay oo kala in asna uu shalay halka ka dhacay inkastoo aynan shalay ka waramin waxa uu dhex maray Soomaali iyo qoomiyadaha kale dad maxaan ku raahdaa ka soo jeeda oo Oromo u badan sida la sheegay burbur hantiyad ayaa la soo wariyay laakiin ma aanay jirin wax dhimasho dhaawacyana waa ay jireen tiradooda lama xaqiijin waxa la sheegayaa in xaaladdu ay faraha ka baxday laakiin markii dambe militariga ay soo farageliyeen oo ay xakameeyeen oo ay nidaamkii iyo kala dambeyntii iyo controlkii ay dib u soo celiyeen dhinaca magaalada jigjiga waxaa la sheegayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar magaalada in uu wali ku sugan yahay laakiin meesha uu kaga sugan yahay lama sheegin laakiin waxa la aaminsan yahay in uusan ku hoyanin madaxtooyada dawladda Itoobiya dhinaceeda waxa ay sheegtay in ciidamada militarigu ay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u ilaaliso nabadgelyada gobolka Soomaalida ee ku yaala bariga wadanka kadib markii isku dhacyo ay shalay ka dhaceen magaalada jigjiga kuwaas oo galaaftay nolosha ugu yaraan 10 qof oo maxaan ku raahdaa dadkii halka ku noolaa ah xitaa isku dhacyada waxay ka dhaceen meelo kale qoomiyadda Soomaalida waxaa la sheegayaa in ay weerar ku qaaday dadka qaybaha kale ee wadanka ka soo jeeda bililaqa ayaa la sheegay halka inay ka dhacday sidii shalay aan warinaynay xukuumadda Itoobiya waxay isku dayeysay in ay u awood sheegato maamulka deegaanka Soomaalida laakiin dad qoreynta ciidamada ayaa waxa la leeyahay waxay dhalisay caro maxalliga xoog leh ugu yaraanna waxa mar kale aan ku leeyahay ilaa 10 qof ayaa halka ku dhintay dadka wax falanqeeyana waxa ay sheegayaan in xiisadda ay sii kicinayaan mucaaradka oo si xoogan uga soo horjeeda maamulka jigjiga ururka ONLF waxay ugu baaqeen ra'iisul wasaaraha inuu hakiyo dhaqdhaqaaqa military uu bilaabo hanaan nabadeed haddaba mushkiladan ilaa iyo intee in la eg ayay gaari kartaa arrintaas waxa aan hor dhigay Faisal Roble oo falanqeeya arrimaha gobolka waxa keenay runtii dawladda deegaanka fikirka ay qabto iyo fikirka uu Abiy Ahmed qabo oo kala fogaaday bariyahan oo dhan soo xumaanaya gaar ahaan dagaalada ka dhaxeeya qoomiyadda Soomaalida iyo qoomiyadda Oromoda gaar ahaan bulshooyinka degan meelaha xadka baa la isku afgaran waayay waxa kaloo arrintaas dad ku sii shiday hadalkii Abiy Ahmed ka sheegay markuu Mareykanka marayay uu yidhi shidaalka laga filanayo deegaanka Soomaalida waxay ku yeelanaysaa 5 ilaa 10 gacmood marka boqolkii meelood oo iyadoo la filayo 8 bilyan sanadkii inay kasoo bixi karto waxay Soomaalidu u aragtay xillu iyo tan saddexaad oo ah in ay soo farageliyeen shirar qolyadooda deegaanka muddo ku abriyahanba ay ka wadeen dirrada iyo meelahaas in ay dawladdu dhinaca la soo safartay saddexdaa arrimood baa arrinta qaxiyada marka arrintan ku saabsan ugu dambeysay ee ah in dawladda ay la soo safartay sida aad sheegtay dhinaca mucaaradka saameyn intee laga yeelan kartaa saameyn xun bay ku yeelanaysaa because mucaaradka la sheegayo mucaarad urursan maaha mucaarad axad qarameed la maaha ama axad xisbiyeed la maaha mucaarad chairman ku-xigeen iyo gudoomiye iyo program iyo barnaamij ay ku hawlgalaan ma aha ma register garaysna oo qanuunka Itoobiya u dhigan ee la xisbiyaadka dalka ka hawlgalaya hal qoro oo hal diiwaangeliye ma aha cidda kaliya ee meeshan la rabay in uu Abiy Ahmed intuu isugu yeedho fariisiye dhexdhexaadiye waxay ahayd dawladda deegaanka iyo ONLF oo muddo 30 sano soo dagaalamaysa wada hadalladuna u socdeen ama uu sameyn laakiin hujuum degdeg ah oo cid uu maanta oranayo waa ku bedelayaa hebel iyo hebel aanay meesha oo nin talana ka diiday dad badan oo talo u soo jeediyey dadman ay fiicnayd inuu isku keeno dawladda deegaanka iyo xisbiyaadka magacdooda aan sheegay gaar ahaan ONLF oo wada hadal loo furaa wuxuu ka doorbiday inuu gacan bidixaynta iyo darbaaxada ku dhufto deegaanka iyo dawladda deegaanka Faisal iminka xaaladda sida muuqata waxa ay ku sigatay faraha inay ka baxdo qaabka ay u falceliyeen ama ay uga jawaabeen maamulka Soomaalida iyo qaar kamid ah shacabkana waan aragnay
marka nidaamkii federaalka Ethiopia iyo isbedelada Abiy Ahmed uu waday ilaa halkay gaari kalayaan ay kula tahay. horta Abiy Ahmed wuxuu noqday ilmo dhashay oo markaaba cudur kaneeco cuntay hadda wixii ka dambeeyay sidii u kobci lahaa ay aad iyo aad xawaaro ku kobcaya ay yar tahay walaal arrintani kamay dhicin markii ugu horeysay Soomaalida markay arrintan oo kale u dhawaatay inay ka dhacdo gobolka Oromooda lama magarta maqaal dheer iyo warbixin arrinta ka dhiibay wuxuu tibaaxay sida aanay marraba munaasib u ahayn in dawladda dhexe ay soo farageliso rijinada haddaanay ka ahayn inay codsadaan oo rijinku yidhahdana soo farageli iyo markay weliba codsadaan in qaraarka loo geeyo baarlamaanka nationalka oo la yidhaahdo waa u baahanay security-gii iyo nabadgelyadiiba gacanteeda ka baxday waxaan rabnaa federaalku inayna soo farageliso sidaasoo keliya baa lagu soo faragelin karaa buu ku dootamay lama magarta beriga sidii tiideelataysteen abiy hadda waxaa loo arkayaa inuu sharcigii jabiyey inuu ku xadgudbay arrintan haddaan hadda intay cusub tahay aan la qabana farakabax bay noqonaysaa waxaa keliya ku daraya waxa weeye xagguu abiy dadka ka damin lahaa maanta hanjabaad weyn ayaa ka soo baxday difaaciisa war uu soo saaray war-saxaafadeed oo moodo inuu leeyahay gacan biran ku qabanaynaa inkastoo hadda la sheegayo xoogaga Soomaalidu gaar ahaan Midwest iyo shacbiga inay deegaano badan dib u qabsadeen oo markii hore Soomaalida ka maqnaa sida baadki oo kale waayahay ugu dambeyntii si kooban haddaan u fiirino nidaamka dawlad deegaanka Soomaalida iyo maamulkooda iyo madaxweynahooda Cabdi Maxamuud Cumar xagee ku dambeyn doonaan ayaad u malaynaysaa runtii waxay ku dambeyn doonaan in wada hadal la galo gaar ahaan haddii ay askartaan oo lafta iyo dawladda dhexe in ay noqoto si nidaamsan in awoodda looga wareejiyo walba Cabdi Maxamed oo hadda aad moodo inuu cadow badan yeeshay sida loogu wareejinayno waa inay noqotaa si ku meel gaari dawladdiisa hadda joogta in cid laga dhex dhiso hadhowtana wada hadal la bilaabo oo lafta iyo dadyoga kale la tixgeliyo wada hadallada uu bilaabay garaadka guud ee jirjiga degan garaad kulmiyeed intaa wixii ka baxsan waxay noqonaysaa nidaamka la yidhaahdo dictatoriyad in ay dawladda federaalku sharciga dhaqanka iyo axadi qarameedkii u yaalay dalka inay ku xadgudbaan taasoo ay kusoo geesho hadday jidkaa raacaan